toddobada sano u horeysa ilmaha wuxuu oran jiray la ciyaara toddobada ku xigtana buu oran jiray tarbiyadeeyo waxbaro edbiya toddobada ku xigtana buu oran jiray ilmihiina la saaxiiba 22 jir ilmuhu markuu gaarana xarigiisa qoorta u suro magaalada gali buu hadee toolad magaalada dhinaca ka raacay laakiin waa goorma waa marka tarbiyada hoose uu soo maray ilmuhu toddobada hore waa la ciyaara sidee loo la ciyaaraya waqti waa in lagu bixiyaa ilmaha la fariisto oo wax la baro oo la tarbiyadeeyo bataabihi waad u jeedaayo ubadkii aabuhu cilaaqa ma leh waxa laga yaabaa culayska inta u badan maanta aqalada hooyada ayuu ku dhacay tarbiyada hooyaduna ma daboolayso ma dhameystirmayso ilaahay labada qof isaga isku dheeli tiray hooyada sifada u badan ay leedahay waa naxariis weeyaan aabahana shidda ayaa lagu yaqaanaa adayg labada markaa waa la isku dheeli tiray waa Abi Bakar iyo Umar oo kale weeyaan Abu Bakarna nin naxariis badan buu ahaa oo jilicsan Umar ibn Khattab nin adag buu ahaa oo wax kale kuma adkayne ilaahay sharcigiisa ku adkaayo qofka hor yimaado Umar ibn Khattab baahidiisa uma sheegan kareenba waa labada sifo marka loo baahan yahay sifada hooyadana waa loo baahan yahay naxariista sifada aabahana waa loo baahan yahay oo ciyaalka inta u badan agoomaha u fiirsada tarbiyadoodu dhinac bay u badataa dhinac haday hooyo ka dhimatana dhinac bay u bataan haduu aabba ka dhintana oo hooyo ku ag haraana tarbiyadoodu dhinac bay u badataa lidaalika labada qof waa isku dheeli tiran yihiin aabahuna waa inuu ciyaalkiisa waqti uu ku bixiyaa oo ku tarbiyadeeyo akhlaaqda wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan oo nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u yimi jiray nabigu Faatuma u yimi jiray Faatuma aaway buu nabigu ku yiri Xasan iyo Xuseyn markaa bay tiri aabbo waaga ayaa noo bariyay bay tiri waaga ayaa noo bariyay annagoo maaragtaan quud la quuto aqalka aysan oolino cali baa iga qaado oo hintoodii xagga ula kacay bay ku tiri markaa buu nabigu cali ka daba yimid radiyallahu anhu ardaah wuxuu arkay cali ibn abi talib oo nin yahuudiya biyaha beertiisa ugu subayo u dhaaminaya oo baldigii biyo uu soo saaraba hal timira lagu siinaya mushqaayad markaasuu in doora intuu shaqeeyay timirtii uu shaqeeyay buu Xasan iyo Xuseyn intuu siiyay biyihiina intuu u daray bay geedku hoos ciyaarayaan calina wali ceelkii buu ku jiraayo ninka yahuudigu beerta u dhaaminaya markaa buu nabigu sallallahu alayhi wasallam intuu yimid nabigu ayuu Xasan iyo Xuseyn buu la fadhiistay geedka hoosteedu nabigu kula ciyaaray markaasuu cali baa arkay nabigu yimid oo Xasan iyo Xuseyn la ciyaaraya dadna markaa buu nabigu ku yiri ya cali labadeeda wiil cadaadu intayna kululaan maadii qaado aqalka igu celisida markaa buu ya rasuulallah iyakii maanta waxay cunaan way heleen oo waan siiyay Faatuma aqalka kaga imanoo gaajoonayso in yar u shaqeynay ii kaadi buu ka yiri nabigu ma dhihin oo ma oran labadaadii wiilna waad u shaqeyso waad ka soo qaadatay aqalkii inantaydiina gaajo ayaad ku dishay warqadeeda keen ma orane nabigu calayhi salaatu wasalaam ummadda uu dhisaayay reerahana uu dhisaayay meesha uu ka fikirayna waa aakhiro weeyaan adduunyada maaha uu la ciyaaray Xasan iyo Xuseyn waxauna ka yidhi caliyow labadeeda wiil cidaadu intayna ku kululaan maad aqalka igu celisida buu nabigu ku yidhi laana rasuulku Xasan iyo Xuseyn uu jeclaa maalin maalmaha kamida mambarka isagoo taagan oo khudbadeynaya ayaa labadooda oo isireenaysa masjidka soo galeen khudbada intuu ka dhaadhacay buu nabigu halkoogii ugu tagay uu soo xambaaray oo khudbadiiba kula soo noqday dhameystiray markaasuu nabigu khudbadii ku soo daruu yiri labada markaan arka ma joogi karo ilaahayow labada waan jecelahay kii jeclaadana jeclow kiina ana ilaahu labada nacbu rasuulku yiri Xasan wa Xuseyn sayyida shababa wa an'ama ahla aljanna Xasan iyo Xuseyn shabaabka jannada gali doona labada ugu sarreysay ugu barwaaqo badan weeyaan buu rasuulku yiri alayhi salaatu wassalaam walabadoodu waa ahla aljanna Faatuma hooyadoodana waa ahla aljanna aabahoodu caliyana waa ahla aljanna weeyaan reerka wada ahla aljannaha noloshoodu sidee ku dhisnayd maada iyo material iyo lacag kuma dhisnayne noloshoodu diin iyo akhlaaq wanaagsan bay ku dhisnayd